marka waxa gudbayna wax loo yaqaano dictionary-ga waa muxuu yahay marka dictionary-ga ayana kooxdan uu ka mid yahay dictionary marka store wuxuu kaydiyaa data ayuu kaydiyaa si multiple data ayuu kaydiyaa sida kuwa hadda soo aragnay saddexda hadda laakiin qaab wuxuu kaydiyaa wax loo yaqaano key iyo value pairs ayuu kaydiyaa key furo iyo value qiime ahaan ayuu kaydiyaa xogta marka mid kasta wuxuu leeyahay wax loo yaqaano value ayuu leeyahay marka wuxuu u qaabeeyaa magaca lagu daray dictionary caadiga tusaalahan dictionary hadda oo wax bedelo wuxuu leeyahay eray iyo macnihiisa ayuu leeyahay eraygi iyo macnihiisa ayuu leeyahay dictionary hadda aan naqaano oo buugaagta dictionary-ga asna soo kale markaas wuxuu leeyahay key iyo soo kale value-giis haddii marka value-ga loo bado keygana loo wacanayaa si value-ga waxa ku jira loo helo marka dictionary markaas astaamaha uu leeyahay waxaa ka mid ah asagani waa ordered waaye wuxuu kaga marka Python versionka marka laga hadlo 3.7 iyo wixii ka dambeeyay waxaa laga dhigay ordered laakiin versionada hore laakiin waxa laga yaabaa inay yihiin unordered marka iska fiiri marka functionka isticmaalaysa marka listigii aan kasoo hadalnay iyo tuple-kiiba waxay ahaayeen ordered halka setska oo ah unordered marka saddexdaas way isku yihiin ordered markaas inaa kala ogaato wixii order unordered inaa kala baritaa laga rabaa sidoo kale waxay tahay mutable waa fahanay shaygan waxbaa laga bedeli karaa xogta mid ka horreeya wuxuu ahaa immutable ayuu ahaa tableka waxa laga bedeli karin sidoo kale keyska must be waxay noqonayaan unique su'aano kale key waxaa laga wadaa id-gu waa inuu noqdaa unique su'aano kale hadda id ayaa geena mar labaad id kale ma soo laabana shay kasta hal caba laga soo qaadanayaa oo keyga haddaa maqashid keyga waa inuu noqdaa unique key hore loo qaatay mar labaad lama qaadan karo inta badan waxaa loo isticmaala marka waxa loo yaqaanaa fast look up by key markaas xogta keyga ku jirto inta badan waxaa la isticmaalaa daatooyinka ayaa loo isticmaalaa look upkan excelka lagu arkaa xogta marka in la fiiriyo la rabo waxaa la fiirinaya keyga haddii la fiiriyo xogtii kale waa la arkaya markaas dictionary-ga inta badan waxyaala loo isticmaala aad ayaa loo isticmaalaa saddex hadda soo hada marka dictionary loo fiiriyo programmingka aad ayaa loo isticmaalaa weliba dhankan waxaa loo isticmaalaa API marka systemada API la dhisaayo JSONska marka la isticmaalayo sidoo kale configurationska marka la isticmaalayo user data marka la isticmaalayo database waxyaabahaas oo dhan dictionary-gan aad ayaa loo isticmaalaa markii loo fiiriyo saddexda kale marka loo fiiriyo dictionary maadaama systemada inta badan marka la dhisaayo loo baahan yahay APIs waxyaabahaas loo baahan yahay dictionary marka aad loo isticmaalaa programming kale waxay dhahaan array ayay dhahaan halka dictionary laayo programming kale marka waxaa la array ayaa la ay u yaqaanaan javascript iyo waxyaas dabarnisid dictionary marka arkaysa waxa arkaysa array ay arkaysa marka aan fiirino marka qaabka marka codingkiisa uu yahay ayaa isla eegi doonaa dictionary inta badan waxyaaba loo isticmaalo intaa koodka aadin markaa rabtid waxaa waa fast accesska markaa rabtid xogta inaad datadan inaad access gareysid si dhaqso markaa rabtid wuxuu kaa caawinaya uu leeyahay name or label waxa loo xogtii si tableka caama hadda tableka caadiga markaa xogta ku jirto tableka xogta muxuu ku jirtaa column-yuu leeyahay soo ma column-kaas wuxuu leeyahay label id waxaa ku hoos qoran id-yadii name magacyada ku hoos qoran age waxaa ku hoos qoran age-yadii saasoo kale markaas isna wuxuu leeyahay noocaas camal uu leeyahay oo hadha marka database lagu xiraayo labelskaas ayaa la isticmaalaa sidoo kale waxaa la isticmaala markaa ku shaqeynaysid structure data structure ah markaas oo table laga wadaa su'aano kale marka la isticmaalayo user profile oo kale settingka oo kale marka la sameynayo systemka waxyaabahaas oo dhan marka la isticmaalayo waxaa la isticmaalaa dictionary-ga markaas marka dictionary inta waxaa loo isticmaala markaas in lagu keydiyo datada in lagu keydiyo ayaa la isticmaalaa sida xagga databaseska sida hadda sheegnay look upka oo kale iyo sidoo kale inaa sheegnay waxyaabaha kale oo la xiriira value oo kale yacni aad ayaa loo isticmaalaa marka loo fiiriyo kuwa kale markaas waa arkana marka qaabku u qoran yahay koodkan dictionary marka labaad aan ugu soo laabo doonaa oo asaga aad u isticmaali doonaa marka loobiska waxyaas isticmaalino qaabkan ogiya haddaa fiirsid calaamadan marka saan hadda loo fiiriyo calaamadan uu isticmaalayo wuxuu egyahay kii hadda setiska ayuu egyahay laakiin wuxuu uga duwan yahay laakiin kan wuxuu leeyahay
key iyo value. Hadda inta waxa waaye keyga horeeya markasta. Intaan waa key. Halkan waxa waaye value. Inta waxa dhahnay name ayaa dhahnay. Halkan waxa dhahnay namekaas waxaa lagu keedinayaa value-gan Axmed. Sidoo kale halkan waxa dhahnay age ayaa dhahnay. Sidoo kale waxaa lagu keedin doonaa integerkan oo da'da markaas. Marka wuxuu leeyahay calaamadan labada dhibcood ayuu kaga duwan yahay ayuu leeyahay markaas. Marka intaan way iswataa intaan waa hal value waaye. Intaan kalena sidoo kale waa value kale waa. Marka mid kale inaad ku darteetid waa inaad dhahdaa comma inaad dhahdo halkan. Halkan marka inaad mid kale ku darteetid comma inaad dhahdo waaye. Kadib markaas aad sheegtid keygiisa kadibna aad sheegtid value-giisa. Marka xog aad daabacanaysidna waxaa la dhahaa tusaale hadda waxaa la dhahaa person variable-kan waxaa isticmaalinaa dot get. haddaa isticmaali jirna kuwii ka horreeyay index isticmaalayna kan waxaa la isticmaalaa marka xogta inaad hesho rabtid get function ayaa isticmaalinaa get function ayaa isticmaalinaa index ma waceena markaas sababta kan index mala wuxuu leeyahay key ayuu leeyahay marka waxaa la markaa dot get marka dhahno kadib waxaa u sheegaynaa meeshan function kan waxaa siinaynaa key name kadib marka wuxuu soo daawici doonaa value uu yahay Axmed haddaa rabtid keyga dictionary inta key oo ku jirta daarabta inaad ogaatid waxaa isticmaalaysaa functionka loo yaqaano dot key ayaa isticmaalaysaa person dot key ayaa leedahay kadib waxaa kusoo bixi doona inta key oo hadda kan wuxuu leeyahay laba key ayuu leeyahay name iyo age ayuu leeyahay haddaa rabtid value-da keliya haddaa rabtid inaad ogaatid all value-ga oo dictionary-gan ku jira haddaa rabtid inaad heshid waxaa leedahay dot value function ayaa isticmaalay dot value function ayaa isticmaalinaa marka arrin gareyna marka sida waxaas noogu soo baxan waa kana marka haddaa tira dot get name haddaa intuu Axmed noo soo baxayo haddaa dhahno age-ka bis daarabna inaan soo daawacnana waxaa leenahay print function waxaa leenahay variable-ka waxaa person waxaa leenahay dot waxaa leenahay get function wuxuu leeyahay keys badan uu leeyahay kadib waxaa leenahay keygii ayaa u baas gareyna oo ahaa age intaas ayaa leenahay hadda age-ka noo soo daawacmayo waa kana marka age-kii ayaa noo soo daacsaday shan marka dictionary qaabkaas marka xogta looga soo isticmaalaa get function ayaa la isticmaalaa xogta keyga marka ay rabtid inaad soo daacdid key value ayaa leedahay sidoo kale value ayaa rabtid marka soo daacdid values ayaa leedahay markaas saan ayuu ugu soo baxaya marka waa dictionary value dictionary key kuwaana marka keygiisa inta marka waxaa sii dhan marka dictionary maadaama aad loo isticmaalo wuxuu leeyahay wax loo yaqaano methods uu leeyahay methodyo badan la isticmaalaa waxaa kamid ah get ayaa kamid ah in la helo value in la helo keygis oo key in la helo value in la helo waa functional la isticmaalo waa items ayaa jiro oo dictionary itemka in la helo tusaale kale hadda meeshan marka aan isticmaalno okay halkan iska daranaysa kaas u weerin waxaa leenahay tusaale kale meeshan aan isticmaalaynaa qaybta oo waxaa isticmaalaynaa oo methods ka isticmaalaynaa waxaa iska print gareynaynaa waxaa leenahay print ay leenahay print markaa dhahno waxaa isticmaalanaa waxa loo yaqaano personal key oo wacanayna marka person inta markaa tiraahdo wax badan ku soo baxaa waxaanan waxa waa methodist waa clear xogtina wada tir waa copy inuu copyay waay from key in laga soo qaato kala waay get waxa waa in la helo items ayaa jiro oo in isticmaalo kan oo kale markaa isticmaalo item functionkaas oo wacanaysa item functionka marka inta wuxuu soo return gareeyaa all key iyo value labadaba hadda kan waxay key bis oo kana value labadaba daarti inaad isku heshid key iyo value ayuu soo qaataa markaas hadda inta ku joojino aan rangaran fiiro waxa soo baxayo dhammaan dictionary oo dhan ay soo soo baxayo name Axmed age sodosha harta all ayaa soo baxayo dictionary functionka wuxuu soo qabtaa all waxa waa itemska dictionary aan ku jiro value-giisi ilaa keygiisa ayuu soo qaataa sidoo kale waxaa jiro wax loo yaqaano update waxaa laga wadaa inuu xog ku daro ama update gareeyo dictionary in wax lagu daro ama in dictionary in la update gareeyo haddaa rabtid waxaa la isticmaalaa kan marka waxaa leenahay su'aano kale waxaa iska leenahay
ama print inta dhigan waxa iska dhigi karnaa person dot ayaa leenahay marka waxaan leenahay marka wuxuu leeyahay popki ayuu leeyahay update ayuu leeyahay update function kan aan wacanayna halkaas marka u wacno oo function kan update marka u wacno waxaan gelin karnaa marka gudihiisii waxaan gelin karnaa marka waxyaabo in update gareeno ama in wax ku daraan daarabno soo aan kala waxa iska dareynaa meeshan curly bracket u wacanaysa saa u soo dhaweeyay saa aragtaan gudaha function waxaa rabtaa marka inaan u paste gareeno xogta markaas waxaa isticmaal marka dictionary wuxuu lahaa curly bracket ayuu lahaa kadib marka wuxuu lahaa key ayuu lahaa keyga gelinayna marka keyga waxa leena soo kale waxaa iska leenahay phone number oo kale phone ayaa leenahay marka keyga marka keyga dhigta halkaas marka waxaa leedahay saan ayuu keyga laba dhibco inaa dhahayd kadib marka value inaa sheegtid direct value maadaama number uu yahay halkaas iska leenahay taasoo kale leenahay markaas qaabkaas ayaa u gelinay inta marka hadda update gareeno oo ran gareeno fiiri okay sababta halkan uu soo bixi waxay tahay printingka ayaa koreeya marka marlaad marka inaa hoos imaano oo alaano kana soo koobiyeenna tadhigana marka maadaama waxa ka bedelnay kana horeeya marka shaygaas horeeya okay hadda marka labadu waa kan way isbedelayaan marka kan naga saar marka waa kana marka hadda fiirno waa ku daran dictionary hadda name Ahmed age waxaan aan soo deeshan phone number marka aan fiiri waa kana marka update kan function kan update marka la wacayo waxa waaye inaa xog aad ku dartay ama update gareeysid hadda rabto waxa update ahana hadda rabno isticmaalno soo hadda waxa isleenahay key name aha meeshaas name aha update ku sameeyna waxa leenahay Hassan oo kala leenahay oo update gareeyna waa kana mujida name Hassan marka update ka marka in value lagu daro ayaa la isticmaalay sidoo kale inaa key hore u jira magaciisa aad gelisid oo aad update gareyso wax ka bedeshaa la isticmaalo markaas asna function kale oo dictionary aad loo isticmaalo gadaalna waa ka arki doonaa sidoo kale waxaa jira wax loo yaqaan pop asna waxa waa hore noo saarnaa pop waxa waa remove inuu ka saaro remove ayuu taagan yahay function ka hore list ku soo aragnay in xog laga saaro marka key value iyo sidoo kale in la saaro key iyo value in la saaro marka waxa u paste gareena marka kaas ina marka xog ina saartid rabtid waxa u paste gareena halka waxa iska leenahay marka person ayaa leenahay dot ayaa leenahay marka waxa leenahay pop function kana isticmaalna pop marka wuxuu naga rabaa marka in aad u paste gareysid saana leedahay markaas in aad u paste gareysid shay aad rabtid inaad saartid soo aan kala waxa leenahay phone oo kale phone kan ina saarna ayaa rabnaa marka saan dii loo phone hadda waa laga reebi doonaa listiga markaas mar labaad marka listigan soo halkan ku soo daawacayna kadib soo daawacayna markaas aan fiirino marka hadda waa kan waa laga saaray mujida name laba xabaa lagu soo reebo marka bob waxa waaye in uu ka saara dictionary-ga xog inuu ka saaro waxaan isticmaalaysaa keyga ayaa isticmaalaysaa keyga sababtoo keygan wuxuu u taagan value u taagan waxaa jira mid loo yaqaan clear waxa waa dictionary dhan in la tirtiro xogta ku jirto clear waa remove all items from the dictionary markaas asana fiirina marka kan wuxuu ahaa bob ayuu ahaa asana fiirina markaas waxaa leenahay su'aalaha person waxaa leenahay dot ayaa leenahay clear ayaa isticmaalna clear functionka iska ilaali marka xogta dhan ayuu dirtiraa oo list ku jirta marka laguma tijaabiyo xog data real laguma tijaabiyo clear marka wuxuu tirtiraa markaas remove dhamaan ayuu tirayaa listiga wax ku jira markaas aadahno uma paste gareena markaan inaan halkan key sheegna ma rabno sababtoo waxa dhan aad tiri doonaa key ma sheegayna marka halkan waxaan leenahay marka print soo daawaca leenahay print soo daawac waxa la soo daawacayaa key hadda meeshan aan sheegin oo ah personalkan xogta ku jirta meeshan hadda personka dhamaan soo gedgareynana waxaa leenahay su'aal kale waxaa leenahay person dot waxaa leenahay adar all arm waxaa leenahay dot items aan leenahay
marka hadda inta markaan anigu waxba kuma jiraan dictionary waa tirtirnay waa faaruq waa kan empty waa wax xoog kuma jirto sababta clear function aan isticmaalna marka functionada waa muhiim markaas inta hadda function oo qaadan waxaa waaye inta function hadda aan qaadanay waa kuwa caansana waa kuwaana markaa bob waa aragnay update waa aragnay value waa aragnay sidoo kale key waa aragnay get waa aragnay marka waxyaabahan dhan marka muhiim ah functionada marka iska fiiri marka koobi ayaa jira sidan la koobiyey oo hore aan soo aragnay marka halkaas marka waxaa u gudbaynaa qaybtan oo ah dictionary ayaa u gudbaynaa marka dictionary ayaa u gudbaynaa dictionary marka midka ugu badan oo isticmaali doono marka iyo listiga labadaas aad u isticmaali doona list iyo dictionary marka aad daato APIs waxyaabahaas database waxyaabahaas marka inaan sameynayno dictionary ayaa aad u isticmaali doona marka halkaas ku joojinayna cashirkeena maantay halkan waxaa u gudbaynaa marka noocii databaseska ahaa list iyo table set iyo sidoo kale dictionary marka waa afarta ugu caansan data structures marka halkaas waa inoo cashirkeena kale marka